maalin wanaagsan oo mar kale iyo isirmal daamay maanta waxaan ka hadlaynaa fuqooshayn qaybteeni saddexaad ama liisanka wadida gaari kaxeynta qaybteeni saddexaad oo aan uga hadlayno maanta sida loo isticmaalo application-ka aad ka baranaysid su'aalaadka theory-ga. ugu horreyn waxaad tegaysaa Google Play Store-ka, waxaad ku qoraysaa Fagen Lernen. markii ay kusoo baxday calaamadaas buluuga aad u jeedaan installation waa soo dejinaysaa marka. halkaas waxaad gelinaysaa marka ciwaankaada, waxaad gelinaysaa passwordkaada, passwordkan gelinayna. waxaan toos ku keenaa marka shaashadan aad u jeedaan. shaashada marka waxay ka kooban tahay laba qaybood, qayb waa theory, qaybna waa praxis. annaga marka waxaan qoseeyay qaybta theory-ga. waxaad tegaysaa marka waxaad ku dhufanaysaa theory learning. waxaa kusoo baxaya 6 qaanadood, training by basic and additional knowledge. marka waxaad toos u aadaysaa training by topics-ka. kabacdi tusaale waxaan ku dhufanaynaa kan ugu horeeyo kaleeto ama training by topics. okay, su-aasha ugu horeyso kaleeto. haddii marka aad su-aasha aad saxdid waxaa noqonaysa calaamadaas guudka aad ujeedaan your answer is correct, waa ka gudbaysaa. balse su-aasha waxay tahay haddii aad jawaabta qaladid waxaad tegaysaa calaamadaas xidigta ah, waxaad ku dhufanaysaa marked, calaamadaas jaalle isku bedelaysaa. okay, waa ka soconay marka su-aasha xigta. waatan haddana su-aal kala qaladay, waxaad ku dhufanay marka mark. waaya markaas soo kacaya su-aalaha magaraysta waxay toos u tagayaan questions marked as difficult. waa kuwana marka mar kaleeta haddana su-aashii waa iska qaldeen, wax la iskaga qorayna way qaldantay. haddana waxaa sameynaysaa sidoo kaleeto waa magaraysanaysaa calaamadii. markastoo su-aasha qalado waxaad sameynaysaa calaamadaas jaalaha saaraysa. hadhowtina waxaad ku noqon karaysaa su-aalihii qalado dhan intay kugu jiraan dib aad ugu noqon karaysaa marka dhammaantood. waayahay marka waxaan idinka codsanayaa fadlan inaad maaragtahay markii aad topican aad mawduuc casharka u baranaysaan in aad jabtarka koowaad ilaa jabtarka ugu dambeeya inaad hal mar dul martaan, su-aalaha ka shaqeysaan. wixii aad ka jawaabto waa sax, wixii aad qaladana waxay kugu jirayaan difficult marked, question is marked as difficult. marka ugu horreyn waxaaba su-aalahaadii qaladaha isku daya inaad saxdid, dhameey. markii aad dhameysid kabacdi dib ugu laabo in aad su-aalihii aad qaladay aad saxdo. intaas markii aad kasoo gudubto marka oo aad su-aalihii aad ka shaqeysay kulli 100% aad keento, waxaad u gudbaysaa markaan waxaad diyaar u tahay inaad imtixaanka geshid. marka waxaad u gudbaysaa intii aad imtixaanka gelin sidee ku hubinaysaa marka inaad imtixaanka geli kartid. waxaad tegaysaa test simulation. test simulation sidaa ujeedaan waxa uu ka kooban yahay 30 su-aalood. waqti waxaad haysataa 44 daqiiqo. meeshaas kore aad ujeedaana wuxuu kuu sheegaa points, su-aal walba inta dhibcood ay wadataa. hadda su-aashan ugu horeysa arkeyno waa 4 dhibcood oo kaleeto. imtixaankii waad wadaysaa, su-aalihii ka shaqeynaysaa. marka waxaa lagaa rabaa 30kaas daqiiqo ee aad haysato in aad 30kaas su-aalood ee lagaa raba inaad 44taas daqiiqo aad ku baratid. 44kaas daqiiqo markii dhamaatana waxaad fiirinaysaa marka inaad su-aalihii saxday iyo in kaleeto. markii aad intaas samaysid waxaad ku celcelinaysaa wax badan 10 mar, 20 mar, 30 mar ilaa aad waqti ka yar aad su-aalihii ku dhamaystiri kartid. markii aad dareentid inaad diyaartid waxaad tegaysaa iskoolkaada, aad iska soo diiwaangelinaysaa imtixaanka diyaar u tahay. markaan
waxaadna gelaysaa imtixaanka haddii uu la yiraahdo waxaan ku rajeynayaa guul wacan inaad ka gaarto theory-ga. fadlan haddii aad nagu soo biirtay page-keena subscribe si aad ula socotid casharada. waxaad kaloota dib u daalacan kartaa haddii aad nagu cusub tahay casharadii kuwan ka horeeyay ee qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad ee aad ka helaysid Dami Films. waxaan rajeynayaa inaad maaragtay wax badan ka faa'iidi doontaan. waad mahadsantihiin.